بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا برنامج النمانت يا موضوع النمانت waxa uu ku saabsan yahay ku hami meel sare waligiin hafudaysan turiyootaan oo aad hanweyn yeelataan inaad qof heer sare noqotaa adiga ayay kugu xiran tahay Wilmer Roloff waa maxay hanku si kooban waa hami qofku uu hiigsado si uu horumar u gaaro waana shayga kugu xambaaraya inaad u istaagto oo aad ka mid dhaliso himiladaada waa wadada koobaad ee guusha loo maro waa humaag mala awaala oo qofku u sawirto waxa uu noqonayo mustaqbalka soo socda adoo waa riyooyin mustaqbaleed hadaba adigu ma leedahay han qof kasta oo bini aadam ah han uu leeyahay laakiin waa lagu kala sareeyaa waxa jira qof han yar iyo qof han weyn qofka hanka yari had iyo jeer waa ka bulshada ugu liita wax guul ahna ma gaaro maxaa yeelay waxa uu ku qaraacsan yahay waxyaalo aad u yar mana rabo inuu isbedel la yimaado maadaama isbedelku yahay wax aad u dhib badan qofka hanka weynina nolosha waa uu ku guuleystaa waxa uu ku haminayna waa weela hanweynidu waxa lagu tibaaxaa inay tahay matoorka kiciya awooddaada iyo tamartaada kugu qarsoon waa timirti Soomaaliyeedna ahay qof han yari ma hana qaado faraqa u dhaxeeya hanka weyn iyo hanka yar hadda ka hor waxa la yiri laba nin oo saaxiib ah misana isku aqoon ah ayaa shaqo xamaal ah ka wada dalbaday garoon diyaaradeed kadibna labadii nin ee saaxiibada ahaa waxa looga yeeray bal in laga wareysto aqoonta ay u leeyihiin shaqada ay doonayaan inay qabtaan mid walba mar ayaa la yeeshay wareysi gaar ah kadibna waxa lagu yiri jawaabta naga suga hadaba labadii nin mid kamid ah waxa loo soo diray warqad sidan u qoran waan ka xunahay adigu ma tiid ruuxii aan doonaynay ababaan raadinaynay ee shaqadan ku soo baxayay sida awgeed codsigaagi maana aqbalay midkii kalena waxa loo soo diray warqad sidan u qoran hambalyo codsigaagi waa noo aqbalnay waxaad tahay ruuxii aan raadinaynay beritoorana waa soo shaqo gali kartaa mahadsanid inta kadib labadii nin ayaa is waraystay oo midkii codsiga laga diiday ayaa waxa uu saaxiibkii ku yiri warniyo waatan isku aqoonta iyo isku xirfad ahayn sida ayay ku dhacday in aadna lagu qaato anigana la qaadan waayo arinku marka uu halka marayo labadii nin waxa ay go'aansadeen bal inay ku laabtaan xafiiskii ay shaqada ka wada dalbadeen markii ay yimaadeen xafiiskii iyo ninkii wareysiga ka qaaday ayaa waxa uu ugu jawaabay waxaan marka hore raadinaynay hal shakhsi oo u qalmo shaqadan sida awgeed markii aan wareysigeedin la yeeshay waxaan ogaaday in ay isku aqoon tihiin sidoo kale ay isku waayaragnimo tihiin balse annagu ma qiimayno shahaadada iyo aqoonta oo keliya waxaan see eegnaa hadba hamiga oo qofku leeyahay sida daraadeed su'aalihii la weydiiyay waxa ka mid ahayd waa maxay waxaad jeceshahay inaad noqoto midkiin waxa uu noogu jawaabay waxaan doonayaa inaan noqdo shaqaalaha ugu wanaagsan ee ka shaqeeya halkan sida awgeed ayaan u diinay inuu shaqaaleysiino ruux hamigiisa ugu weyn yahay weligiin shaqaale ahaado oo aanu ka leen sidoo kale isla su'aasha waxaan weydiinay midkiin waxaan uu noogu jawaabay waxaan doonayaa inaan noqdo duuliye sida awgeed waxaan aragnay ninkani inuu yahay qof han sare leh oo laga yaabo shaqadeena in isbedel wanaagsan ku soo kordhiyo taasi ayaa keentay in aan aqbalno codsigiisa hadaba dhageystay hanka sare u qaad si waxaad hiigsanaysay aad u gaartay waad gaari guusha ogow hankaagu waa horumarkaaga weligaa hankaaga iyo himiladaada dheere higsa meel sarreyso hadafkaaga gaar yeel noolee hankaagu rajadaada hawlgeli weligaa hubsiimadiyo ku dadaal hubsiimada weligaa habsamidiyo ku dadaal hubsiimada wax ku hiifo waad heli nacib horumarkaaga inta aad hayaan tahay naftu hawl ma weydee ku ilaali horsocod intaas ayuu ku egyahay mawduuceennii maanta